السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال ميل ولي بهواد مانتو عالمka ka joogtaan ku soo dhawaada maanta iyo ciyaarihii qodobadan baa noo socda oo ku soo qaadan doona maanta ciyaaraha maanta jira la ciyaari doona iyo waliba wararka ugu dambeeyay suuq qariibsiga ciyaartooga oo nu soo qaadan doona iyo waliba ciyaaraha Premier League oo hadda meel xasaasiyad maraya nimankii Liverpool ahaana xalay ku hooyday kaalinta koowaad ee ciyaaraha Premier League xalay hurdo dheer bay hurdeen oo raaxaysteen xalaya habeen bay u hayd ay qooradu xataa laga seexa kari waayay guriyaashi ku dhadhawaa dadka Raiders ku la jaarka ah Manchester ba qooradu bay ka dageysay oo gaareysay maxay yeelay xalay habeen qurux badan bay saxdeen Liverpool way hurdayeen hurdo fiican bay hurdayeen iyagoo hadda qarka u saaran guuleysiga ciyaaraha Premier League waxaan isha lagu hayaa Manchester City iyo arrimo kale muhiim baan soo qaadan doonaa ciyaaraha caawa dhacaya PSG mar kale horyaalku la gafiyay Camp saameynta uu leeyahay oo Manchester ay aadi doonaan iyo waliba qodobo kale muhiim baan ku soo qaadan doonaa oo ciyaaruhu qayb ka yahay ciyaartooygii hore ee Manchester City oo shalay doorarodiisii iska sii cunay ama digaagiisii iska sii watay cunistiisa markuu arkay Salah oo darbad xoogan bumsinaya maalintii Messi ku dhawaadeen uu ciyaaro Spain garsooraha dhexdhexaadinaya ciyaarta Barcelona Manchester iyo qodobo kale waanu ku soo qaadan doonaa maanta ciyaaraha oo qayb uu ka yahay inkaartii Drake oo haddana ku dhacday kooxda Paris Saint-Germain Salah goolkii ugu quruxda badnaa xushtay uu xirfadiisu dhaliyay kadib kii xal uu Chelsea ka dhaliyay iyo qodobo kale muhiim ah haddaba warkii oo faahfaahsan wayahayo caawa ciyaaraha qaar ee horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa jiri doona oo ku saabsan ciyaaraha Premier League kulan ka mid baa la ciyaari doona Spain caawa waa Real Madrid baa iyana ciyaari doonta haddaba Arsenal ayaa waxay caawa la ciyaarayaan nimanka madaxa adag ee Watford waxaana lagu ciyaarayaa gagada Watford oo caawa 10 habeen bay ciyaari doonta Arsenal ciyaarteeda Premier League gaar hadda joogta booska lixaad ee ciyaaraha Premier League waxaana haysataa 63 dhibcood haddii ay caawa soo adkaato Gunners waxay doonayaan inay booska ka soo saaraan nimanka ka horeeya Chelsea wallow ay isku dhibcaan noqon doonaan Chelsea waxay haystaan 66 dhibcood Arsenal waxay haystaan 63 dhibcood waa kuwa shalay mashaqaystayaasha la garaacay ee meelaha baska la yimaade cimaamad ma leedihiin ya majlis shalay shaqay u soo baxday shaqo ma soo bixin shalay oo marada ka dhacday waa ka cimaamad aanu lahayn ya ma waxa Liverpool iska celi kara niman ba u soo baxay inay bas meesha dhigtaan shaqo ma rabin nimankaas tabaray isaga celiyaan kuwa kaamaba lahanba anu waan arkay nimanka waraawga qaba ee Liverpool ee hunguri horyaal haya dhuntaanay u dhimanayaan nimanka adduunka waxa la isku dagaalayo ee la isku baabiinayo waa dhuntaan wax la marsiyo baa la isku dagaala nimanka Liverpool ee dhunta dheer leh wali aan horyaal arkin Chelsea aan arkay wax kaba qaban karinba inta yimaadeen bas ka dhigteen ma kuwaas bas lagu celi karaya bas yaalo hadii la kala xataa lagu ma celi karin kuwa kaayo waa la saaray shalay meel nimanka Chelsea yiraahdo Man City waxay yiraahdeen oo naga dag waxa kanu maxamed ma wallahi waxa noo celi aan raadin waba kay difaac iska galay lahaayeen oo meel bal la saaray Arsenal marka Watford bay la ciyaarayaan 10 habeenimo sidoo kale Real Madrid baa inuu caawa la ciyaaraysa lagana saacadu markay tahay 10 habeenimo marka waa ka oo La Liguna waa ka iyo Leganes Madrid caawa garoonka laga isbaal lagu ciyaari doona ciyaarta tan haddaba warkii ugu waaweynaa maanta iyo ciyaaraha barnaamijkeena kanu baanu soo qaadan doonaayo ciyaartoogii hore ee lagu magacaabo Ashley Cole wuxuu cadeeyay in aanu filin Mohamed Salah inuu noqon karo sida uu maanta yahay wuxuu yiri marnaba sida daacadda markaan u hadlo Mohamed Salah Chelsea loogu ciyaarayay ee xilli ciyaareedkii ugu horeeyay la iska diray ee la raacdeeyay markii qaab ciyaareedkiis xumaa uu la yimaaday meesha ما يسدين بيرو محمد صالح baa noqonaya laacibku maanta yahay Ashley Cole waa yaabi shalay markuu Mohamed Salah dhaliyay darbadii xooga badneyd ee bum ku siiya goolka Ariaka gool haya ma ahan arkaa waa ku lacag beeshan waa lacag qasaartay u weeyaan midka keebah la yiraahdo cimaamad uu leeyahay ma jirto waxaan arkay ciyaartii Manchester isagoo banaanka laga garaacayo Aguero ka garaacayaan shalayna waa ka Mohamed Salah baa 20 mitir meel goolka u jirta bum ka siiya goolka garaacay marka ruuxa cimaamad ma lahan kaas waa bulukeeti ilaahay amarkiye yaani waa iska jircay gool haya aad u xoogan ma baahanba war ninka shub ma ahan ninka waa nin bulukeeti be war banaanka laga garaacayo goolka kaas waa lagu lacag beelay ka waran marka ciyaartooyga lagu magacaabo Ashley Cole intuu yaabay shal wuxuu yiri maya yiri wallahi aanan filin buu yiri Mohamed Salah inuu sida noqon doono Mohamed Salah inuu noqon doono mid kamid ah ciyaartooyga ugu fiican dunidu inuu noqon doono filin buu yiri markuu Chelsea ka tagay Salah wuxuu aaday dhanka iyo Talyaaniga isagoo waqti fiican ku soo qaatay kooxda Roma kadibna Egyptianku ku soo laabtay Ingiriiska waa kay shalay Chelsea gool ka dhaliyo cajiiba
dhan kalena Man City waxaa lagula talinayaa macalinka kooxda kubadda cagta Man City waxaa lagula talinayaa Guardiola in aanu ka dhigin mar dambe ciyaartoyga Kevin De Bruyne waxaana sida kula talinaya ciyaartoyga Liverpool ninka lagu magacaabo Danny Murphy oo shalay falanqeynaya ciyaartii Liverpool ciyaartii Manchester City iyo Crystal Palace shalay 3 gool bay ku garaaceen kuwa Crystal Palace ka hore waxaa bilaabay Sterling isagubaana mid labaad dhaliyay kadibna gool bay dhaliyeen Crystal Palace kadibna Jesus ayaa gool saddexaad ciyaartu dhaliyo hadaba Murphy wuxuu leeyahay Kevin De Bruyne waa ciyaartoyga ugu muhiimsan ee Manchester City ugu khatarta badanba mar dambe aysan dhicin buu leeyahay tababaruhu inuu ku fududaado sidii toddobaadkii hore inuu keed ninka kala geliyo war De Bruyne waa nin khatar badan hadii ay u ciyaari lahaayeen ciyaartoyga Man City sida De Bruyne u ciyaaray sida Bernardo Silva u ciyaaro ee spirit kale marka Man City looma baqayba maanta marka City waxa hadda lagu baqay waxay tahay nimankan ilmo yaryar baa u harsan Liverpool waa waxaan wax iska blockation bicili karin kuwa ka marka laakiin Man City ma shaqba haysata oo laba ciyaarood oo weyn baa u dhiman waana Tottenham iyo Manchester United baa u harsan laakiin ayagu way soo dhaafeen Liverpool ba laba ciyaarood weyn baa ugu jirtay Tottenham bay ahayd way soo garaaceen Chelsea ugu jirtay way soo garaaceen oo iyagu maxay idin diidaya laakiin kolbanniman yahow markii aad aragto Liverpool oo kula tartamaysa inay la ciyaarayso kooxo yaryar sida Cardiff, Huddersfield, Newcastle iyo Wolves markaad aragto aad la ciyaarayso Tottenham iyo Manchester kugu soo horeeyaan xoogay ruuxas leedahay armad ba isdibtaan leedahay mararka qaar laakiin bal waa inaad kooxda ku kalsoonaataa hadii kuwa kay dhaafi karayaan iyo hadii kalaba laakiin tababaruhu waxa loo sheegayaa inaanu mar dambe Kevin De Bruyne aanu bakeed dhigin oo iska ilaaliyo De Bruyne waa ninkaba ciyaartu Man City ka socota ayuu leeyahay Murphy in kaarta kursaba ay iska in kaarta ciyaartu ninka fanaanka ah ee reer Canada Derek ay iska socota ayaanta tano waa wax lagu maadaysanaya Dereka ka waxa leeyahay waa nin in kaaran ninkii isku la sawira ama sawir la gala ama la shakaysta ama la fariista waxa weeyaan in kaarta ba ku dhacaysa kooxdiisa isaguba shalay Kurzawa ayaa toddobaadkan isu soo sawiray ninka Derek ahaa Kurzawa kooxdiisa biishii xalig waxa lagu dhuftay 5 gool baa lagu dhuftay oo Lili baa meel saartay ceeb caliig baa ka dhacday oo shalay mar kale biishii iyagu u dabaal degay horyaalku waa la hakiyay toddobaad horena waa la hakiyay mar kale iyagu u dabaal degay raba marka waxa leeyahay in kaarta Derek waa iska sii socotay oo fidaysa Derek marka waa nin loo fahansan yahay in kaaraya waa ninka sawirka kula jira Kurzawa toddobaadkan buu sawir la galay ninka kanu xalig waa kaaya biishii 5 gool iyo goolba laga kiciyo meel ba la saarayo maradu ka dhacday waliba maalin dhaweyd waxa sawir la galay Aubameyang kooxdiisa Arsenal Liverpool looga badiyo Goodsamberg baa looga soo adkaaday sidoo kale Aguero baa sawir la galay Aguero kooxdiisa waa laga badiyay waliba hore ayaa laga qabtay waxa sawir la galay ciyaartooyga lagu magacaabo Sancho oo kamid ah kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund Borussia waa la qabtay 5 baa lagu dhuftay xataa Pogba ayaa sawir la galayo Pogba kooxdiisa waxa laga soo rabay ciyaaraha koobka FA Cup oo isagu xataa ciyaaraya maalinka 16 bisha Maarso marka ninkii sawir la gala in kaar baa ku dhacaysa Ole Gunnar Solskjaer wuxuu leeyahay bal meel iska dhig uu leeyahay wixii aan ku soo sameeyay Camp Nou 1999kii asagu ayaa maalinka gool ku soo dhaliyay Camp Nou oo Manchester ay Champions League kaga qaaday kooxda Bayern Munich garoonka ka hayo xilli dambe isagu gool dhaliyay wuxuu leeyahay meel iga dhiga mid taa waxaan rabaa inaan Barcelona gurigooda ku soo reebo ayuu leeyahay waxaanan midda u adeegsan doonaa wixii aan u adeegsan inuu soo garaacno PSG iyo inaan soo garaacno kooxda Juventus wuxuu leeyahay spiritkii aan ku garaacnay PSG kii Juventus aan ku soo garaacnay oo ah kooxo waaweyn baanu Barcelona u adeegsan doonaa wiir inaan ku garaacno laakiin mushkiladda jirta waxay tahay Camp Nou waa meel aad u qatar badan oo Barcelona ay aad ugu kalsooni badan tahay gagadu Camp Nou Manchester waxay ku maraysaa tijaabo aad u weyn maxaa yeelay gagada tanu Camp Nou Barcelona miyamana looga badan muddo dheerba oo hadda 30 ciyaarood ma aynu dhicin oo xiriirada Barcelona gurigeeda lagu garaaco tartanka Yurub waxay badiyeen 27 kamid ah marka taa waxay ka dhigantaa kooxda Premier League in dhibaato weyn ay ku gali karto Camp Nou marka Barcelona ma ilaabi karno Manchester inay tahay kooxdii soo reebtay Paris Saint-Germain laakiin Barcelona ogow marna ma aan looga badin bagagada tan ee Camp Nou laga soo bilaabo muddo hadda 6 sano iyo in ka badan 6 sano ka badan laguma garaac halkan waxa markii ugu dambeysay ugu adkaatay gagadeeda ciyaar ka tirsan Champions League Bayern Munich waxay 2013 marka Manchester Camp Nou bay aadayaan oo ah meel ay adag tahay in lagu soo badiyo muddooyinkan 30 ciyaarood Barcelona ma adkaan garoonkeeda baa lagu leeyahay marka waa kay waan arki doonaa marka xilli Messi xitaa ay haystaan oo inkastoo kulankii hore aanu Messi wax badan soo bandhigin haddana odagu waxa laga yaabaa ciyaartan inuu iska qaado in kaarta wareega 8 inuu isagu gool ka dhalinba Real Madrid caawa ciyaartooy badan bay ka soo
tageen sida Mariano Rigolan iyo Brahim Diaz bay kasoo tageen waxaana Madrid caaw xusheen ciyaartida tan Keylor Navas Zidane wiilkiisa wayano Diego Altuve iyo Carvajal iyo Fallejo iyo Varane iyo Marcelo iyo Ardisol iyo Modric iyo Casemiro iyo Valverde iyo Marcos Llorente iyo Isco iyo Capulas iyo Benzema Asensio iyo Bale iyo Vasquez ba waxyaabaha kale ugu muhiimsan maanta inuu ciyaaraha waxa kamid ah Juventus waxay diyaar u tahay inay iska fasaxdo ciyaartooyga yani Juventus ay xooga saaraysaa baa leeyahay ninka iska fasaxaysa Barcelona ee Umtiti Juventus maalin waxa ku dhawaaqay inuu ka fariisanayo ciyaaraha xilli ciyaareedka soo socda difaacooda Andre Barzagli waxaana hadda warar ku soo baxay Talyaanigu ay sheegayaan sida Rai Sportive ay soo baahinayso Juventus directorkeeda ninka lagu magacaabo Fabio Parisi wuxuu raadinayaa difaac aad u xoogan waxaana rabaan in Camlo ka soo wataan ninka la yiraahdo Umtiti oo booskiisa uu kala baxay ninka lagu magacaabo Lenglet marka Umtiti waxa laga yaabaa inuu xagga Juventus uu qabto dhan kalena Real Madrid ayaa ku dhawaa la wareegida ciyaartooyga Luka Jovic balse waxay u badan tahay in lagu garaaci karo tartanka wiilka kan ee qatarta badan u ciyaara kooxda Stuttgart kan waa wiil 20 ku jira waxaanu xilli ciyaareedka dhaliyay 25 gool marka waxay warar ku leeyihiin Barcelona waa lagu garaacayaa la wareegida ninka Frankfurt u ciyaara ee weerarka Jovic marka Barcelona ninka waa laga adkaaday baa leeyahay Real Madrid hadda qarka u saaran la wareegidiisa laakiin Barcelona ayanu ciyaaryahan kale qarka u saaran tahay Dilayd wuxuu u sheegay mid kamid ah asxaabta ay ka ciyaaraan horyaalka wadanka Holland inuu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Barcelona haddaba ciyaartooyga kooxda William ninka lagu magacaabo Paul Lonch oo u dhashay Spain ayaa weydiiyay ciyaartooyga ninka lagu magacaabo Dilayd halku ku biirayo wuxuu yiri waxaan weydiiyay inuu Barca ku biirayo waxaan ugu jawaab yiri waa waxaan rajaynayaa saaxib laakiin hadda wax ma cadda wuxuu igu yiri saaxib waan rajaynayaa midaas laakiin wali heshiisku ma dhicin buu leeyahay marka ciyaaryahan ka ciyaar horyaalka Holland ayuu u sheegay Dilayd inuu rabo inuu ku biiri doono kooxda Barcelona oo sugayo midata inuu kuwa ka ku biro saaxiibkii De Jong ba halka loo qaatay isaguna halka buu rabo in loo qaato marka mid kamid ah ciyaartooyga Holland ka ciyaar wuxuu cadeeyay Dilayd inuu rajaynayo inuu ku biirayo kooxda kubadda cagta Barca Villana wuxuu leeyahay Messi waa ciyaartooyga ugu fiican kubadda cagta caalamka soo maray waxay ku soo wada ciyaareen kooxda kubadda cagta Barcelona waxaanu leeyahay ciyaaryahanka kan ee David Villa anu Bale ma soo arkin Maradona ma daawan Cruyffna ma daawan jiilkaygu ninkii ugu khatarta badnaan arkayo wuxuu leeyahay waa Leo Messi Leo todobaadkan oo kale wuxuu ku dhawaaday sanadii 2004 inuu u ciyaaro kooxda kubadda cagta Spain ayaa ku dadaalayay ninkan aynu Argentina u ciyaarin oo wadankooda u ciyaaro Fabregas kale ayaa kula talinayay Messi in uu u ciyaaro wadanka Spain laakiin Messi abi wuxuu ku adkaysteen inuu ciyaaryahanka u ciyaaro Argentina Messi ayaa ugu dambeyn u ciyaaray 17 isagoo lambar 17 loo xiray 2004 xulka wadankiisa Argentina isagoo iska diiday inuu u ciyaaro Spain marka todobaadkan oo kale 29 June 2004 Messi baa ku dhawaadeen uu ciyaaro xulka kubadda cagta Spain oo Spain waxay doonayeen ninkan saaxirka ah inay la wareegaan oo xulkooda uu ciyaaro laakiin Messi abi way diiday mid taayo Fabregas ragii qalqaalada u socday ee rabay ninkan Spain ay ka sixdaan dhalasho ahaan ee uu ciyaaro wadanka way ka diideen oo aabaha Messi George iyo Messi way diideen inaan u ciyaarin xulan ahayn Argentina warar kale ugu muhiimsan maanta inuu ciyaaraha waxa kamid ah Felix Berg oo garsoore Jarmal ayaa loo dhibay ciyaarta weyn ee u dhaxaysa kooxaha Barcelona iyo Manchester United waa garsoore qatar badan oo soo leeliyay finalkii ciyaaraha Champions League 2017 ay qaadaysa kooxda Real Madrid wali wuxuu soo leeliyay finalkii Europe League 2023 ay Sevilla ku guuleysatay Borch ayaa waxa uu soo maamulay semifinalkii Champions League labadii semifinal ee Champions League ay ciyaareen laba semifinal buu soo maamulay Champions League ay ku jirto Barcelona guuldaradii ka soo gaaraysa kooxda Chelsea 2022 isaga baa garsoorayo Chelsea ay badinaysay maalinka ka xaqiiqdii ninka kanu ciyaaraha Barcelona dhowr jeer uu maamulay inta badan Barca kuma inuu farxin ciyaarihiiso waxaa jira ciyaarooyin ay badiyeen sida kii Atletico iyo kii Man City laakiin waxaa jira ciyaarooyin ay ku wareereen kii AC Milan 2023 iyo waliba Barejume Milan la galeen waliba kii Atletico Madrid guuldarada ka soo gaaraysa 2004 iyo waliba kii Chelsea garsooraha in badan Barca ciyaarahooda kuma fiicno yaani nasiib badan kuma laha garsooraha kanba محمد صلاح kadib markuu shalay ka dhaliyo gool qurux badan kooxda kubadda cagta Chelsea Allah muxuu gool ahaa wallahi ya cimaamadiisa la haysa karimba ya bum buu ka siya banaanka wuxuu ahaa gool cajiiba wax laga weydiiyay haduu goolka ahaa kii ugu quruxda badnaa uu dhaliyay xilfadiisa maya ayuu goolka ma ahan kii ugu quruxda badnaa kii aan ka dhaliyay kooxda Everton ayaa ah goolkii ugu quruxda badnaa buu leeyahay waana kii uu ku guuleystay xidiga goolka sanadka ee FIFA Puskas lagu siiyay wayaan wuxuu yiri kii Everton aan ka dhaliyay ciyaartii labadeerku ayaa ahaa kii ugu quruxda badnaa sidoo kale wuxuu leeyahay Tottenham ayaa mid kale qurux badan ka dhaliyay kii labada ku dhamaanay ciyaartii labada ahayd ee waqtiga dambe labada aan ka dhigay asna wuxuu ahaa gool aad u qurux badan buu ahaa laakiin waxaan dooranay kii aan ka dhaliyay kooxda Everton maadaama uu darbigii ugu horeeyaan ciyaaro iyo goolkii ugu horeeyaan ka dhaliyay laakiin kale wuxuu yiri wallahi yiri Salah goolku markuu dhalinayo yiri hadalkii way iga soo fiqi way yiri qaabka uu dhaliyay goolka Chelsea Buluketi عماد مليدين waxbaan celinayda ku hayseen macaliska inta uu iska noqday
والله استوحي تري وروحان وحلا نغتك وحان وح نوم علين كريم يا وروحان أنا ولايد صار نغداف بيلي وح علي كريم كان بيلي رسيتي أدبت وعريسي سنسال الجلسيو وروحان wax laga qaban karo yaaqa war kooxdan Liverpool wax ma laga qaban karo nin horyaal u socdo war Chelsea iska dhaafay Chelsea lagu ma celi karo war nimanka niman meel u socdo waa niman meel u socdo waa nin xiligaas xil xun le gool dhalanayo oo hatta cunugii Keita gool iska dhalanayo oo Mario cunugeedii oo meelaha goolka ka dhalanayo oo labadii gool lagu helay aan laga dhalayni ka war nin meel u socdo waaye iska dhaafa kuwa kan meel bay rabaan Manchester United waxay doonaysaa ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Celtic Moussa Dembele hadda wuxuu kamid yahay war waa ciyaartoygii hore kooxda kubadda cagta ee Celtic hadda wuxuu kamid yahay kooxda kubadda cagta ee Lyon hadaba Manchester waxay doonaysaa ninka Lyon u ciyaara ee 22 jirka weerarka ka ciyaara Dembele hadaba ninka kan hore ugu soo ciyaari jiray Celtic ayaa 28 gool xilliyeedkan u dhaliyo Manchester marka Dembeleha ka bay dalbatay shalay markuu Salah goolka quruxda badan dhalinayay Shay Given oo falanqeynaya ciyaarta taa oo hore ugu gool hayo ugu soo ahaan jiray Manchester City asagoo cuntada cunaya wuu arkay kii oo goolka dhalay Salah wuu iska dhiga tiray goolkii Salah ama iska indha tiray Salah markuu darbada xoogan dhalay wuxuu yiri naga dhaaf waxa ma fiiri karnee markaas uu digaaga iska sii jiiday يجريل بوسي قضية صيح لفت حتى صيحن وروقي عيل بدرتيد بقى شاي كيف انه واسيقو جول هايو هوري كوحدة مانشستر سيتي هورنا بريمير ليج وسو عياري جروح الدوري كوحدة مان سيتي لا بصر اسكو خيغتا انو ريالكو قادو لكن waxa yaab noqotay markii ragii kale ee falanqeynaya ciyaarta uu ku jiray Ayraid ay dabaaldegeen oo ay u sacabtumeen Salah asagu ma fiirin xataa dhalado markuu arkay Salah oo gool ku dhalanaya digaagiisii iska sii rogrogayo cilba ku rogay shalay waa iska diyaa gool hayo hore City markuu wuxuu rabaa kooxdiisa in koobku qaado marka City isku dhamashay saasi uu carooday markuu ninka gool ku dhaliyay marka Given oo falanqeynaya ciyaarto shalay Premier League-una hore ugu soo ciyaaray City u soo ciyaaray uu iska dhaga tiribaa leeyahay goolkii Salah uu dhaliyay quruxda badnaa halka dadka dhan bay u wada kaceen ilaa asagu waa City mucaarad weeyaan gambarka ku qasaaray studio gambar kula dhacay Chelsea waxay doonaysaa wali markan Ibrahimovic ka cusub ee Sweden ninka lagu magacaabo Alexander Isak oo ah mid kamid ah ciyaartoyga u soo baxaya Sweden waana wax uu ciyaar hadda kooxda kubadda cagta ee Dortmund wuxuu dhaliyay 12 gool 12 ciyaarood u ciyaar 19 jirka kanba marka Ibrahimovic ka cusub ay doonayaan Chelsea Pep Guardiola wuxuu leeyahay wiilasheedu waan ku faanaya wali horyaalku gacantina ay ku jiraa uu leeyahay gacantina wali ku jiraa aanu badino ciyaarano haray uu leeyahay Lorisna wuxuu leeyahay Son iyo Lucas ba dabooli karaan maqnaanshaha Kane buu leeyahay oo yaani Kane maadaama uu dhaawacmay wuxuu leeyahay labada ciyaaro ee soo aadan Premier League iyo Champions League Kane iyo wax Son iyo Lucas ma warwaa naga celi doon u leeyahay kooxda Man City oo awood u leh inay booskiisa buuxiyaan Mbappe wuxuu leeyahay sidii barbaratoy amal baan xal u ciyaarnay inuu lagu barbartay uu leeyahay 5 gool baa lagu dhuftay PSG kursaaba inkaartiisii baan ku qabsatay baa leeyahay oo yaani sawir la galay ninkii dareeg ahaa ciyaarihii kuwa kaabaabanta ugu waaweynaayo waa ka nabadgelyo